ergooyinka u socda si ay uga qayb galaan caleemasaarka boqorka beelaha Sanaag Bari oo maalinimada berito loo ballansan yahay ayaa waxay ku soo qulqulayaan degmada Yube oo ka tirsan gobolka Sanaag wafuudan isugu jirta madax dhaqameedyada beelaha madaxda gobolka Sanaag iyo degmada Ceerigaabo xildhibaano guurti iyo aqoon-yahano iyo waxgarad kale ayaa iyagoo ka kala yimi dhammaan deegaanada daafaha gobolka Sanaag iyo gobolada kale qaarkoodba gudida loo xil saaray soo dhaweynta dadka ka soo qayb galaya caleemasaarka boqorka iyo dadweynaha ku dhaqan degmada Yube ayaa kaga hortagay meel ka durugsan magaalada salaanka bacdi waxaan aad u salaamayaa wafdiga sharafta leh oo ka soo kicitintay degmada Baran una socotay martiqaadkii uu fidiyay boqor Ibraahim Maxamed Xasan oo lagu caleemasaarayo magaalada Yube waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinaynaa aqbalaadiina iyo ka soo qaybgalkiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. qodobna soo dhaweysay oo laga soo sameysay waa salaamantiin aad baad u mahadsantiin. sidaa u sheegay nabadoonku waxaan u nimay caleemasaarka boqorka taala ka dhacay bari subaxnimadii waanu soo ajibnay intaas aanu nahay afar xubnood waanu nahay oo ka timi Baran boqor Maxamed boqor Axmed oo soo kicitimay casiimadii loogu fidiyay degmada Yube oo ahayd xafladii lagu caleemasaarayay boqor Ibraahim Maxamed Xasan. waxaanu anagu u nimay macsuumadii boqorka lagu caleemasaarayay hadii waxaanu ka nimay Ceerigaabo aad iyo aad baan soo dhaweynta aan u ajiibnay haddana aanu nimay waxaanu haddana filaynaa caleemasaarkii iyo goobtii boqorka inaanu tagno oo ka jeedino wixii waajibaada sidaas aanu haddana u soconnaa soo dhaweyntan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaana wafuudaas kala gedisan mid kastaba loo soo galbiyay dhinaca gudaha magaalada Yube oo ah goobta loo diyaariyay in lagu caleema saaro boqorka cusub boqor Ibraahim Maxamed Xasan Gacmo Yare ee beelaha Sanaag Bari yeelanayaan. Cabdi Xasan Cadde TV-ga caalamiga Somali Channel magaalada Yube.